السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا ولكن عكرمة ولكن علي فاتح كسودو هذا عوانك channelka هداك عصبتين سبسكرايب ده إن شاء الله وحين بلاون دونو فسيريد ريوينكا وحنا مركا إنه فسير دون ريوينكا ولا لها سوقرين شيخ علي فاتح شيخ سودو وما سنت عكرمة محا إنه بالله بس محايزة هاي wiil ayaa wuxuu soo weydiiyay wuxuu yiri sheekho waxaan ku riyooday anigoo hooyadeed u galmoonay bismillah haddii aad ku riyooto adigoo hooyada u galmoonaya riyadaasi waxay u baahan tahay in saddex dhinac laga istaago marka dhinaca ugu horeeya waxa weeyahay in adiga iyo hooyadaha xaaladeedan ka dhaxaysa inay aad u liidato oo mataqaanaa aad isdagaali doontaan oo dhibaato badan inaga dhex dhici doonto dhinaca labaadna waa tan kasoo horjeedkeeda oo ah in aad hooyada si fiican isku wanaagsanaan doontaan xaaladiinu meel fiican ay gaari doonto baari aad noqon doonto yacni hooyada aad kugu ducayn doonto marka waxay ku xiran tahay qofka riyada arkay iyo xaaladiisa ku xiran tahay marka way fiicnaan lahayd wiilka xaaladiisa haddii la soo ogaan lahaa qaybta u dambaysa ee saddexaad waxa weeyaan inaad maal xaaraam ah kasban doonto ama maal xaaraam oo riba ah aad cuni doonto oo xaaraanta ama ha ku soo gasho ama maalka xalaasha kugu soo galay ba xaaraan aad uga faa'iideysatid inaad maal xaaraam ku tacalluqa inuu gacantaada soo gali doono. Assalaamu alaykum. Barakallahu fiik. Gabadha labaad waxay leedahay su'aasha labaad waa gabar waxay leedahay uur ayaan leeyahay sheekhow waxaana ku riyooday anigoo ukun cad qaaday kadib iga dhacdo iga jabtay ukunta sideedaba tafaasiirteedu waa kala bedelan yihiin marka haddii aad uur leedahay haddana ukun cad aad qaaday ukuntaasi waa ilmihii waay ilmaad dhali doontaa laakiin culimadu halkaas markay marayso laba arrin bay u kala baxaan ukunta hadday kaa dhacdo qaarna waxay leeyihiin ukuntaasi kaa dhacday waxay sabab u noqon doontaa inuu ilmahaasi caaq kugu noqdo ilmo caasi ah oo dhib badan kugu noqdo ama inuu saqiirnimada ku dhinto asagoo yar marka ukunta hadday kaa dhacdo labada xaalo ayay leedahay. Barakallahu fiik. Gabadhan kale waxay leedahay su'aasha saddexaad sheekh la ima qabo oo waxaan ahay gabar waxaana ku riyooday anigoo uur leh insha Allah waad guursan doontaa gabadhaasi way aroosi doontaa insha Allah taala insha Allah. Midaan waxay leedahay waxaan ahay gabar waxaan ku riyooday anigoo faras cad saaran wabi dul maraayo faras cad anoo saaran oo wabi dul maraayo aan ku riyooday riyadaasi waxa weeyahay gabadhaasi biidnillahi tabaaraka wa tacaala waxay istitaaco iyo awood u yeelan doontaa muwaajahatul xayaat waxa la yiraahdo ama inay nolosha waajahdo oo ay meel fiican ay ka gaadho marka sideedaba faraska cad iyo biyaha يعني جوجاس قروح بدن ريدي سونا محما وإن قف قوة لآتاي وأود له ونلاشن مال في عنك جاري دون إن شاء الله تعالى إن شاء الله. قبل أن حيثري قدام بيسه وحان كوريو ذا شيخ أو أنا جو بس البدن عناي بس البدن قبل عنيسا ما شاء الله بس شو والله بقي بود إن يرتاي إن بدن تاي هذا يرتاي وهالستيرين له الكوريو تو بس اللي عنايا laakiin haddaad ku riyooto adigoo basal fara badan cunaya waxay ka dhigan tahay inaad qofkaasi cimri dheer inuu yeelan doono caafimaad inuu heli doono dhinac murugo ka haysatay inuu ilaahay faraj khayr qaba u ka siin doono